harkiisa lagu nastaa halkaasa lagu degaa dhulkaaga lagu hodnaa harkiisa lagu nastaa halkaasa lagu degaa hamun looguma dhintee hoogaantiisad cuntaa dadkaagaad hiishataa ciidadaad haybsataa dadkaagaad hiishataa ciidadaad haybsataa ciidadaad haybsataa hamun looguma dhintee hoogaantiisad cuntaa dadkaagaad hiishataa ciidadaad haybsataa dadkaagaad hiishataa ciidadaad haybsataa ciidadaad haybsataa hawkar iyo maaha koob farasiyo lama degaan habaarsiya boodhaho carradu hoostay martaa waxay wataa caagaan hawkar iyo maaha koob farasiyo lama degaan habaarsiya boodhaho carradu hoostay martaa waxay wataa caagaan bulshadu waa habar wadaag hilbiyo dhiig wada dhasho himila ku midoobayo halad bay wada qabaan himila ku midoobayo halad bay wada qabaan habeenada kiile way hayaano way hagaan heetiya way kabaan bulshadu waa habar wadaag hilbiyo dhiig wada dhasho himila ku midoobayo halad bay wada qabaan himila ku midoobayo halad bay wada qabaan habeenada kiile way hayaano way hagaan heetiya way kabaan hormuud meelaad u tahay halyey meelaad ka tahay hormuud meelaad u tahay halyey meelaad ka tahay ku tahay hodanaad ku tahay qofay banaad ka tahay
suban kugu salaanaysa makuwan ambali suban kugu salaanaysa makuwan geesiyaashii naftooda u sabqeeyey qarannimada Somaliland geesiyaashii naftooda u sabqeeyey qarannimada Somaliland Ruskoga dhawsan kugu salaanaysa makuwan Ruskoga dhawsan kugu salaanaysa makuwan Kuuside xambaarsan soo noqoshadiisa kalsoonidu mutaystaye dastuurka kugu salaane Minimo walaalnimo gobanimo Minimo walaalnimo gobanimo Islaamnimo kugu salaane Sabo usaliyo Islaamnimo kugu salaane Sabo usaliyo Ilaahay baa mahadle inoo suurta geliyay inaynu halkan iskugu nimaadno quruxdaas amni iyo ammaan inagoo ku sugan iyo qarannimo iyo gacmaysqabsi iyo walaalnimo iyo isjacayl inagoo ku sugan inaynu halkan iskugu nimi ilaahaasaa mahadle mar labaadka waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo anigoo ogeysiinta xilli dambe geeyay dhacdooyin muhiim oo kale oo qarankaan oo mashquul ku ahaa naga aqbalay inuu mudnaan siiyo xafladan ganacsatada ee sanadlaha rugta ganacsigu qabato inuu nagu soo sharfo oo inoo furo iyadoo culays badani jiray qiimaynta uu hayo ganacsatada iyo ogaanshaha uu ogsoon yahay kaalinta ay ku leeyihiin qaranka dartood aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya waxaan u mahadnaqayaa wasiirada wada shaqaynta dhow ee joogtada aanu leenahay wasiirka ganacsigu kow ka yahay nagu kormeerayay hirgelinta dhacdadan aanu ka wada soconnay wada shaqaynta wanaagsan ay naga dhaxayso inuu la daadihinayay camalkanna aad iyo aad baan ugu mahadnaqay waxaan u mahadnaqayaa sharikadaha dhacdadan la'aantooda aanay suurto gasheen ee martigeliyey shirkadda Dahabshiil Group iyo shirkadda Telesom Group Las Group malaw magaceedu ku cusub iyo safaradaha ku Las Group waxa weeye ilma Cismaan Geelle Axmed Cismaan Geelle iyo walaaladii magac hore oo chief ba hore loogu yaqaanay Las ma kelmadii Ingiriis tahayd maaha waa ceelkii biyagaabka ahaa ee fadfadhay jireen muxuu ahaa biyaha macaana ay u jeedaan waa kelmad Soomaaliya businesskoodii faraha badnaa ee wada garanaysaan SBI ka mid ahay ayaa magacaas hoos yimaado Las Group la yiraahdaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa quruxda iyo arrimaha ay soo kordhiyeen oo la arki doono haddii Alla yiraahdo waxaan si gaar ahaan ugu mahadnaqayaa shirkadda DB Well oo wakiilkeedii joogo oo ah maalgeliyihii ugu weynaa ee ku soo dhiiraday Somaliland ee maalgashiga ku sameeyay ayuu si gaar ahaan ugu mahadnaqay waxaan u mahadnaqaynaa kale ganacsatada kale iyaguna darajada labaad iyo saddexaad ku martigeliyay dhacdadan hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga iyaguna na soo sharfay ee nagula farxayay dhacdada nagala qayb qaadanay iyagana waa u mahadnaqaynaa ganacsatada iyaguna sida hagar la'aanta wax soo saarkoodii ama badeecadoodii soo bandhigay sida dhagaha nugul iyo habsamida iyaguna runtii u soo ajiibay markaan u yeernay waxa qurux badan tudaa soo bandhigay iyagana waan u mahadnaqayaa waxaan si gaar ahaan ugu mahadnaqayaa ciidamada amniga ee Somaliland oo la'aantood arrintan aanay suurtagal ahayn isoo iman karin iyaga ka waa nabadgelyadeena iyo inaynu quruxdaas iyo nabadaas iyo xaragada aynu muxuu ahaa ku joogno si gaar ahaaneed baan ugu mahadnaqayaa iyaga iyo taliyayaashooda
dhallinyaradii hawshan daadihiisay ee aanu xil saaray ee sidaa u habaysay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa muxuu ahaa waxay noqon doonaan guruub noo calaamadsan oo hawlaha dambana insha Allah aanu wada wadaagi doono aad baan ugu mahadnaqaya qof kasta oo ka qayb qaatay hirgelinta dhacdadan mahadnaq ma sagara siinaya rag iyo dumarku doonaba ha ahaadee mahad warbaahintana iyagana waan u mahadnaqaya waxaan ka rajaynayaa quruxdaas siday tahay inay u gudbin doonaan haddii aan loo yidhaahdo waxaan si gaar ahaan ugu mahadnaqayaa dalkaynu walaalaha nahay waxba muxuu ahaa tan iyo taaba wada leenahay safiirkooda aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa sida muxuu ahaa karaamada leh muxuu ahaa inoogu yimi aad baan ugu mahadnaqayaa muhiimadda looga jeedo dhacdadan ay u leedahay qaranka Soomaaliland iyadoo fara badan maadaama madashu ay muxuu ahaa iyo waqtiguba ay koobayeen madaxweynaha loo fadhiyo saddex qodob oo kaliya aan ku soo koobo mudane madaxweyne dhacdada kow sida xeerka rugta ganacsigu dhigayo 390kii marka dalka asaasisay waxa weeye rugta ganacsigu hay'adaha ugu da'weyn ee qaranka uu leeyahay 390kii baa la aasaasay waxa looga jeeday kow dhacdooyinkan inay bulshadu iskugu timaado isku dhex gasho waxa xusub midan dhacdada tii ka horeysay celcelis muwaadiniinta soo booqday maalintii waxay ahaayeen 2500 oo ka yimi gobolada dalka dhammaantood caasimadda ha u bataan isbarashaa ka dhacday muxuu ahaa arrin aad u wanaagsan arrinta culayska inta lagu nabadgeliyo ku dhacay arrin weyn oo muhiimadiisa leh oo qarankana karaamo iyo sharaf weeyaan marka isbarasho bulshada dhexdooda ayaa ka dhacday gobolada looga yimaado carwada arrinta kale waxa weeyaan dhiirigelin iyo suuqayn bay u tahay ganacsatada Soomaaliland in madasha loo sameeyo si ay ugu soo bandhigaan waxay muwaadiniinta u diyaariyeen waliba si gaar ahaaneed waxaanu runtii priority ga koobaad iyo labaad ma saddexaad oo leh waxa Soomaaliland meeyay ama wax soo saara ama fikrada ama adeega ama aqoon ee lagu soo dhigayo dhacdadan ayaa si gaar ahaaneed mudnaan dhacdadan ugu leh maadaama laakiin arrintaasu kategorigaas waliba uu wali kooban yahay korayana ganacsatada kalena iyagana waxaan u ogolaanaa waxay muwaadiniintooda u keeneen soo fadhiyeen waxaan soo ganacsatada caasimad ahaan farxad weyn bay noo tahay in lagu qabto cawadii sideedaad Hargeysa taasoo madaxweynuhuna insha Allah taala inoo furayo ganacsatada waxaan leeyahay fursad bay u tahay in la ogaado ganacsiga aad soo bandhigteen khaasatan waxaan u go'u tilmaamayaa shirkadaha gaas iibiya oo deegaanka wax weyn ka taraya waxaan leeyahay la dhiirigeliyo iyaguna qiimaha xooga u jiriyaan dadkuna xooga u islaan si dhuxusha loo yareeyo aad baa u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hadda waxaan gudageli doonaa sponsoriska waaweyn waxaan ugu horeysiin doonaa gudoomiyaha Daabshiil mudane Cabdiraxmaan Cali Cabdi shirkadaha Daabshiil Group annaga farxad weyn bay noo tahay maanta Charleskan aan ka soo qayb galnay waxay noogu tahay ganacsi ahaan waxaan leenahay bank shirkad telefoon oo Somtel iyo ganacsiyo shirkadda baabuurta iibisa Hyundai qaybta ganacsiga dhammaan qaybahoodii kala duwan halkan baan maanta ay ku diyaar yihiin waxaanu u dhiirigelineynaa goor walba ama sponsor uga noqonaynaa Daabshiil ahaan inaan ku dhiirigelino ganacsatada dhexe kuwa yaryar iyo kuwa waaweynba ee aanu maalgelino inay ka soo qayb galaan oo isku bartaan oo wax ku kala iibsadaan saasay fursad qaali ah noogu tahay dadkeenu waxay u badan yihiin hal abuur ganacsi inay isku weydaarsadaan afkaarta ganacsiga wax ku kala iibsadaan ayay qiimo weyn u tahay carwadan oo kale waxaan sidoo kale rugta ganacsiga iyo dawladda ku dhiirigelinayaa inay ganacsatada aanay ku koobnaan Soomaaliland aynu gaarsiino heer ay ka soo qayb galaan dawladaha jaarka dhammaantood
dhammaantood kadibna aynu gudubno dowladaha waaweyn ee Afrika iyo Yurub ay ka soo qayb galaan si ay u noqoto halabuurka iyo ganacsiga kala duwan ee gudaha iyo dibadba loogu qayb qaato intaasaan kaga qayb qaadanaynaa fikradayada aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaad runta ganacsiga daabshil group ahaanna way garab taaganahay waxaan u yeedhi doonaa hadda maamulka DB World Maxamed Cabdi Burhan anigoo ku hadlaya magaca shirkadda DB World waxa farxad noo ah inaanu markii ugu horeysay aanu ka soo qayb galno bandhig ganacsiyeedkii sideedaad oo DB World u noqonaysa markii ugu horeysay ee ka soo qayb gasho runtii farxad iyo rayrayn iyo dhiirigelin aanu ganacsatada la wadaagi doono ayay noo noqon doontaa maalmaha bandhigani uu socdo waxaanu macaamiishayada ugu talagalnay in aanu la wadaagno faahfaahinta adeega shaqo ee macaamiishayada isticmaasha dekedeena qaran ee Berbera iyo qorshaha adeeg ee 2019 ee fooda inagu soo haya hadii eed baydmo runtii bandhigani inta uu socdo waa markii ugu horeysay ee aanu macaamiisha iskala soo baxno aaga shaqada waxaanu la wadaagi doonaa oonu la fadhiisan doonaa oonu u faahfaahin doonaa oonu dareenkooda iyo rabitaankooda adeeg aanu la qaybsan doonaa maalmaha ay carwadu inoo socoto si aanu ugu jaangoyno rabitaanka iyo damaca iyo expectationska ay ka filayaan adeega DB World runtii waxa sidoo kale aanu maalmaha hawsha socota aanu ka faa'iideysan doonaa oo la wadaagi doonaa adeeg bixinta shirkadda DB World sida ay halbowlaha kobcinta ganacsiga iyo guud ahaan kobaca guud ee dhaqaalaha dalka ay uga qayb qaadato oo adeeg bixinteedu uu yahay wadnaha kala socodsiinaya guud ahaan dhaqaalaha iyo ganacsiga guud ee dalka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaanu goobta ku sugnaan doono insha Allah maalmaha ay noo furan tahay wixii aanu sugnaaba waa safaf dhaadheer oo ay noo soo galaan macaamiishayadu barta aanu ku leenahay bandhiga ganacsiga ee DB World oo salaama oo isoo ka socda Telesom Group sharaf gaaray noo tahay maanta inaan ka soo qayb galno annaga shirkadda Telesom Group carwo ganacsiyada sideedaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aanu sideedaad jeer ka soo qayb galnay maanta waxay si gaar ah noogu tahay iyadoo Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Telesom carwo ganacsiyada teknolojiyadda Afrika ugu weyn ee lagu qabto sanadka South Africa magaalada Cape Town la inoogu cumaamaday inaynu nahay sanadka 2018 hormoonka teknolojiyadda iyo isgaarsiinta Afrika waa guul u soo hoyatay qaranka Soomaaliland guud ahaan waa guul u soo hoyatay dhalinyarada ee ka shaqeysa teknolojiyadda ama hal abuurtay adeegyada teknolojiyadda ee lagu abaalmariyay waa guul u soo hoyatay dhammaan ummadda Soomaaliga ku hadasha waa guul u soo hoyatay dhammaan ummadda Geeska Afrika dhammaanteed inta kadib goor gaaban hadalkeed gaaban meel kasta hadalkeeda ilaahay carwadan maanta ay ku joogno ee loogu talagalay in ummadeena loogu soo bandhigo wax soo saarkeena gudaha cid kasta waxay keentaa waxay hayso qolo kasta waxay soo bandhigtaa waxay ummadda u hayso maadaama Telesom tahay shirkad ku caabaxday horumarka teknolojiyadda guud ahaan dunida si gaar ah looga xuso waxaanu maanta halkan ugu soo bandhigaynaa macaamiishayada horumar teknolojiyadeed oo kullay ay aad iyo aad uga faa'iideysan doonaan dhalinyarada waxbaratay waddankeenu u baahan yahay horumar dhaqaale oo ku xidhan teknolojiyaddu waxay shaqada ugu badan abuurtay waxa ugu weyn ee maanta ku soo bandhigi doonaa waxa weeye inaanu dhalinyarada shaqo u sameeyno iyagoo guryahooda jooga oo haddii aad hore u maqashay sariflayaasha iyagoo guryahooda joogay lacagta sarifaan maanta dhalinyaradu iyagoo guryahooda jooga ayay shaqaysan doonaan lacag la heli doonaan commission la heli doonaan adeegga waxaa la yidhahdaa Telesom
ambassadors waxa weeye qof kasta oo awooda wuxuu iibinaya adeegyada Telesom iibiso moobilkiisu ka iibinaya khidmadiisana mar alla marba adeegga iibiyo ayuu helayaa cid kasta oo awoodaana way iibinaysaa adoo gurigaaga joogaa wax loo iibin kartaa khidmadaada la heli kartaa waa shaqo abuur waxa weeye waa smart employment waxaynu maqnaa smart telephone smart city smart vehicle laakiin waa smart employment waa shaqo abuur lagu talagalay dhalinyarada inay shaqo ku abuurtaan qof kasta isagoo joogo shaqayso adeegga labaad ee lagu talagalay dhalinyarada waxa weeye dhalinyarada jaamacadaha iyo dugsiyada sare dhigata inay ka soo qayb galaan adeeg free ah oo ay ugu tartamaan inay shirkadda Telesom ka helaan hal semester oo free ah oo lacag ka bixinaysa shirkaddu 10 arday waqtiyaal sidii kale doonaan wax lacag laga qaadi doono qaabka ay isticmaalayaan ardayda dugsiyada sare dhigata iyo ardayda jaamacaduna waxaad ka heli doontaan xarumaha iyaga waxa kaloo muhiima inuu midnimada sheegno gaadiidleyda iyo dadka gaadiidka wata inay iyagana soo bandhigeen waxa la yiraahdo smart vehicle ama gaarigaagu inuu noqdo meel kastoo joogtay goob kastoo joogtaba inaad ka katoorin karto la socon karto ka warhayn karto intaas waa qaybta tiknoolajiyadda waxaa sidoo kale Telesom Group jooga bangiga Dar es Salaam wuxuu isla ugu talagalay macaamiishiisa waqtiga carwada u jabiyo adeegga maalgelinta dhinaca kalena ardayda jaamacadaha dhigata in computerskii lagu maalgelin jiray loo jabiyo 40%. waxaa kaloo inoo jooga shirkadda Solgas oo sida gudoomiyaha gobolku sheegay iyaduna ugu talagashay waqtiga carwada socotay 15% idiin jabiso qiimihii gaasta inta carwada la joogo waxaa weeye waa carwada keliya dukaamada hadda tagtaan qiimo hore aad u tagi doontaan ugu dambeyn waxa iyaduna joogta shirkadda Mart oo ay Telesom Group ka tirsan ama Modern Automotive Technology oo hageerash casri ah oo ka helaysaan adeegyo tiknoolajiyada oo gaadiidkiina diagnostics lagu sameyn karo caafimaadkiisa lagu baari doono iyo waliba spare parts boja oo ah junior ama spare parts original waxyaalahaas oo dhan carruurta ku talagalay aad baan idin soo dhaweynaynaa faahfaahinta waxyaalahaas oo dhanna waxaad ka heli doontaan goobaha carruurta ku leenahay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad leenahay ku soo dhawaada Telesom iyo horumarka tiknoolajiyada Afrika iyo horumarkeeda waxaan u yeeri doonaa waxaan ku sii socon doonaa barnaamijka waxaan u yeeri doonaa hadda gudoomiyaha gobolka mudane Jaamac Xaaji Ahmed mudane madaxweyne waxaa sharaf inoo ah dhammaan qaranka Soomaaliland inaad maanta noo furto carwadii 8aad oo ay noo soo qabanqaabiyeen rugta ganacsiga ganacsigu waa muraayadda laga dheehan karo horumarka uu qaran kasta ku tallaabsado runtii waxaa ka muuqda horumar ballaaran oo lagu farxo ganacsatadeenna in la dhiirigeliyana way mudan yihiin waana sababta madaxweynuhu maanta uu idinku furayo munaasabadan dhiirigelinta ganacsatada kelmadda aan odhanayo ganacsatada waxa weeye waxaa jirta dhalinyaro badan oo waxbaratay oo la timi hal abuur ganacsi iyo fikrado wanaagsan oo loo baahan yahay inay gacan qabad iyo dhiirigelin ganacsatadu ay isla garab taagaan aad iyo aad baan idin salaamayaa soo dhownahay gabagabadii barnaamijka waxaan idinka taabanayaa waxaan hadda ku soo dhaweyn doonaa wasiirka ganacsiga isaga ayaa ku soo dhaweyn doona madaxweynaha qaraf weyniya anigoo ku hadlaya magaca ganacsatada qaranka Soomaaliland kuwaas oo ah lafdhabarta dhaqaalaheena in xafladan maanta aan isku yimaanay ay suurta gasho waxaan aad ugu mahadnaqayaa kuwa suurta galiyay waayo dadku waxa weeyaan inta dadaal bay keentaa inta dadaalkii garabka la qabata waxaa sharaf noo ah madaxweyne ganacsatadeena iyo wasaaradda ganacsigu ciladeen iyadoo jiri jiray way ka baxeen maanta aad iyo aad baan isku dhownahay madaxweyne adigoo waqtigaaga oo dayiq yahay arrintani oo arrin muhiim ah
caalamiyan runta ganacsigu moogtahay xafla exhibitionska ay qabanayaan noocaniha ay yihiin kuwa qaranka isagu muhiima adigoo waqtigaada dayiqaya ogolaashiyaha naga ogolaatay in aad arrintan nagala soo qayb gasho ogolaashahaadu waa dhiirigelin waxaan filayaa horta waxa weeyaan haddaad aragto ganacsi urur ganacsiyo sanoo kale loo qabtay midna waa mid guda midna waa mid caalamiya kani waa ku guda weeyaan waxaan filayaa ka gudaha inaan gaadho 100% waxay nafaan soo saaray inaan display garayno mustaqbalka dhow waxaan kaloo filayaa in aan intaa ku joogin aan tayo wax sameeyno dadka wax curinayaan ay waxyaabo fiican ay curiyaan oo aan tartan ku galno caalamka ka iibgeyno oo carwadaha dibadaha ka qayb galno waqtigu gaaban yahay waxa weeyaan intaas aan ku soo koobayaa waxaan hadda ku soo dhaweynayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا هذه الله بقيها مرتشافتا إن جلس واقع بالشيء عوضا وجوه الرجال وكل جمهور الجمهورية الوطنية راح يصير كلها وكبيها وكل إيجودا وهيك أجانب هاي إن جلس واقع بري حفلة ومهرجان والمسؤولين حفلة مهمة الواقع الشيء كان عصاتهم halka dalka ka jiraana waa la sheegay oo weyn wada ogolahay waxaan doonaynaa inaan dhowr qodob isla eegno marka hore dalku guud ahaan waa nabad baa lagu koraa nabad baa hore lagu maraa guud iyo dibadba waa nabad jaalalkeena iyo caalamka nabad baynu la wada nahay cidda dagaal lagama dhexeeyo waratinimo iyo wada noolaansho iyo iskaashigeenu jaararka badan leh gudaheedana nabad buuxda maanta ka jirta laba dhibaato oo khilaafyo beera ah oo midna ay ka jirta koonfurta maascaano midna sanaa ceelaf weyn labaduba xal nabadgeliyo oo waara gabagabadoodii ayay ku soo dhammaadeen arrintastoo dadkii nabadeynteeda ka qayb galay oo dalalka jaarka maxay qaarkood ka soo qayb galaya meelo badan way soo gabagabowday midaha kala socotaan waftigii Soomaaliland ee odayaasha ahaa ee ka qayb galay Hargeysa ayay ku soo beegayeen labada cisho soo socota iyaga oo nabadii iyo ilaalinteedii u wada qoorkasoo waa ku gumadana wala soo dhaweyn taceelaf weyn iyo waa gabagabow wixii ka dhacay dadkii iyo halkii loo xalayay odayaasha iyo culimadii waxay ku jiraan wiigan dhexdiisa in iyaga soo dhamaato oo nabadgeliyo iyadoo la dhamayno saa waxay naga dhamaanaya laba khilaaf oo muddo dhexdeeda dalkiisa ka jiray oo beer ahaa way naga soo dhamayaan gudaheedna waa nabadda ka soo waxaan u baahanahay oo isku raacsanahay inaynu dalkeena horumarino dalkeena horumar loo mariyo saddex qodob baa tiina mid waa dhaqaale midna waa aqoon iyo technology waa aqoon uga socota midna waa hogaamin saddexdaa tiim haddii aynu isla helno isla jaan qaadaan faqriga iyo baryada iyo foorxumada badan intaba waa ka baxayna dhaqaalaha ilaahay mahadiyaynu joognaa dalkeena waxa la dhahaa waa dal aan dhaqaale liita waxaan qabaa bablishakeena iyo dhaqaalaheena maanta waynu haynaa dhaqaale aynaan cidna la baryootinayna dowrsanay aynu dhaqaalaheena haddaynu si xaqiiqo u fikro aan dalkeena ku horumarin karno dhaqaale wuxuu ka kooban yahay inta dowladdu hayso iyo inta shacbiga hayo waa dhaqaalaha dalka dhulka iyo badda iyo hawada ilaahayna siina waa dhaqaale intaa haddaynu eegno way naga badantay dhaqaalihii waxaa hormood ka ah ganacsatada waayo waxaynu qaadanay suuqa xorta ah adduunku tadawradku soo maray wuxuu aqoonsaday in uu dhaqaaluhu koori karo uu ku hor socon karo oo meel lagu gaari karo marka la xoreeyo maskaxda bini'aadmiga oo baraafitka ama shacbigu uu maamul dhaqaalaha uu hogaamiyo oo abuuro uu dhexdiisa ka tartamo ee lamada aqaleeya ayaa hore loo mari karaa waddadii baynu qaadanay 7 sano meel fiican oo heer sare ah oo aynaan taakulan caalami helin ayaynu gaarnay waxaanu yeelanay dad leh
hal abuur ganacsi oo fara badan oo shirkado abuuray iyagoo oon baanka adduunka caawin iyagoo insurance haynin iyagoo la aqoonsanayn iyadoo caalamku la xidhiidhin haddana ka gaadhay maqaam caalami ah inay la xidhiidhaan waynu ku bogaadinaynaa waa ku dhiiraynaa kudashada weybudiyiin habdoo asdaawada waxaan leenahay aqoonyahan waaya araga oo xaaladaha 7 sanado dhexdooda ka soo baxay oo wax isbaray oo caalamka oo dhan maray oo caalamka laga aqoonsan yahay oo aqoontoodu ku filan tahay dhinaca walba badda cirka dhulka urdugiisa waxaa ku jira iyo baan mid walba waxaa aqoonyahan fara badan oo in kor loo qaadi kara haddana si fiican isu isticmaalo qodobka saddexaad waa hogaaminta waa dowladda maamul leh maarayn leh xukuumad leh siyaasad leh waxa weeye yaa hagaya intaa isku daraya ku hogaaminaya halkaa la jeeday taayada carantoo dhan baa la saaraa waxaan doonaynaa hogaaminteena inaanay fadhiid noqon ay la jaan qaadaan labada kale oonu taana isugu tagin haddii dowladdu hogaamintii naga xumaato labada kale socon maayo marka halkaa waa inaan dhaleelin aynu dibweyn waxaan soo noqonayaa saddexaas aynu soo afjina tan u horeysa waa dhaqaalaha qur-aanka ilaahay wuxuu ku sheegay markuu leeyahay jihaada oo micno badan leh wajaahiduu biamwaalikum wa anfusikum nafta lama horreysiin oo lama odhan ku jihaad nafta maalkaa la horreysiin micno badan bay leedahay maalka ku jihaadsi wuxuu leeyahay haddii diinta loo jihaadayo maalka hormar haddii dalka loo jihaadayo maalkaa horreynaya haddii horumar la doonayo waa jihaad horumarku waa jihaad wixii xunna baad la dagaalamaysaa wixii wanaagsan baad fulinaysaa musuqii baad la dagaalamaysaa dembiilaha la dagaalamaysaa faqrigii baad la dagaalamaysaa sinaan la-aantii baad la dagaalamaysaa waxaasoo waxay baatay jihaad iyo adkaysi iyo fishan iyo inaad dar ilaah markaa maxaa la horeysinaya bianfusikum ninkii caqliyadda iyo fishanka haya ee horumarka keenaya ma soconayo waa in maalgelin lahaa wajaahiduu biamwaalikum wa anfusikum markaa maxaynu u baahannahay dhaqaalahay baanaa inuu dagaalka ugu horreeyo oo uu galo haddii dowladdu naasmadooda waa inay ganacsadu ka qayb qaadataa oo lala dagaalamaa dowladda waxay qabaanahay oo dhan haddii la doonayo in mashaariic horumar la sameeyo oo dad shaqaalo u abuuro waa inay dhaqaalada waa inay ganacsada horumartaa dagaalkeeda bilowdaa maanta dhibaatooyinkayna haysta shaqalaanta u hore habeen walba dhallinyaradeena iyo buriskeena way isla degeen burisku habeen walba dawaana buu jiraa dadku habeen walba dhallinyaradena ka cabanaysaa dhallinyaradaas waxay baahan tahay in la xidho oo buriska ay sariyadaan oo habeen walba la keena caqli ma noqonayso xoolaha laga baxaya jeeb iyo shidaalka iyo askarta iyo raadinta haddaynu u bedelna inaynu dadka shaqo u abuurno waynu kala kara waxaynu u baahannahay dadka wixii shaqo geynahaa caqligaa waa inay ka heshiiyaan oo isla gartaan ninkii maalka hayay iyo kii hogaamintaha dowladdii iyo ganacsada waa laysa qaada ganacsiga socon maayo haddii aanay nabadgeli jirin haddaan haysan consumers lacag haysta macaamiil lacag haysta wax ka iibsata dee ganacsigu soo guraya uu soo noqonaya dowladda haddii aanu dadkeeda raalle ahayn oo nolol haysanin dee la dagaalada umaysa buriska jeel wadi mayso uusa tegaya halkaa waxaynu u baahannahay inaynu isaga nimaado talo wanaagsan ka gaadho waxyaalaha kaabayaasha nolosha ee dadku u baahan la taabanaya dhammaantood waa xor maanta waxbarashadu waa xor waa ganacsi loo batay waa in tacliinta yar laga helo waa waajib qaran oo saaran ardayda weelaa buufeeda u loo dhiibine inanka jaamacadda ka baxay subjectku bartay jaamacadda london iyo india waa inuu tartama waa mas-uuliyad saaran ninka jaamacadda laydku waa nolosha ka bar haddaan leegtirda horumari maayo laydku gacanta ganacsada ku jira waxaa laga rabaa layd tayale oo jaban oo dalka horumari kara inay noo keento ganacsato sibilku oo ilaahay lagu manaystay waa deeqalayna siyo dhulkeena taala warshadeeni sibilka iyo kuwo kalaba 7 sano ayaynu kicin karnaa waxaa gacanta ku haya ganacsato waxaa laga rabaa ganacsadu inay warshadii sibilka waan ogahay inay intaaba dadaalayeen shir bay ku jiraan saan bay tagaan kama fadhiistaan laakiin way nagu daahday waa inaan helaa sibilka oo loo shaqo taga
DB World إلى كان هذا وحيلوها يا ملايين العجل أو سنة دمر كان بلاو يكدر بوليسها هذين ورشة جالسين في منطقة ديارة العجتها ذلك لا قادته وأنا من عصير لو كانوا معنا ما كانوا العجل يقول ما كانوا عدنا الواحد سنة وحنوبة أنا إلى إنه وحيالها نقابة كركيش ينودي sababta waxyaalaha muhiimka ah loo dhiibay ganacsatada iyo fikirka xorta waxa la doonayaa inuu degdego uu adeeg wanaagsan keeno uu macaamiisha wax wanaagsan hela waa waajib saaran ganacsi loo dhiibay ilaa waxa la tijaabiyo dawladdu inay wada karno waa laga soo wareejiyay marka xilkii uu ku wareegay hadday dawladdu tahayna waa inay dawladdu ka shaqaysaa wax alle wixii waxa wanaajinaya iyagoo la saaxiiba ganacsatada oo arrin walba iska fahmayaan maxaa dawladda xilba saaran caafimaadka waxbarashada biyaha laydhka in dadka ay helaan wax il soo gaara waxay dadku cunayaan iyo waxay huwanayaan iyo waxay ku shaqaysanayaan waa inuu noqdaa taliya qofka caafimaadka inay soo gaarto mas'uuliyadda kantaroolka dawladda idinkaa u loo doortay dawladdu inay dadka dantooda ilaaliso laakiin waxaan ku aaminsanahay qabnaa inay ganacsatada iyo mas'uuliyadda dalka iyadoo waxba jira soo dhisan ay walba wala jecel badan yihiin oo jeeda wanaagsan doonaan waan ka wada hadli doonaa hadda wax soo baxo maanta waxaan u sheegayaa waxa jira warshad dalka laga sameeyay oo sameeya cunto iyo cabitaan oo markii laboratoryga caalamka loo qaaday ee aan soo baanay aan argagaxiso ليس نوع قاتل كان عسوك سو قاتل شامر كو سو maray nin warshad baalisaya saasan sameeynaya waan ku aaminay markii wixii soo baxay la baaray waa gargaxisa shalay waxaan amar ku siiyay gudda waan tagay booliis dowladda dhammaan warshadaas oo dhan qalabkeeda la soo wada soo waliba maxkamadda la geeyay waayo aqoonteeda u lahaayeen inay ku soo daayaan dadku waxay qorayaan waxay cabayaan waxa soo kale waxaa loo baahan yahay wax kasto gaaraya qofka caadiga ay laga iibinaya inay tayintu tahay wixii lagu qoray boorkiisa iyo lagu xayisiiyay hadduu cusbitaal yahay oo uu soo xayisiiyay inuu wadnaha qalayo inay sax tahay waxa uu qalaya inay sii tahay waa mas'uuliyad wasaar hadduu dab u galinayo inuu dabki safe yahay uu nabadgelye yahay oo aanu gurigiisii ku gubanin sidii ku shanta carruur ku dhimatay saddexda carruur oo leer dariiqa uu maraya ay aamin tahay oo tayo fiican yahay oo aanu ahayn la daciifo wax ku aqri karo oo qiimaha uu qaadi karo waa inuu tayo walaalada ganacsatada ku aaminay waa taa waa mas'uuliyadda kana aynu ku ixtiraamno ugu dambeeyo hadduu wax barasho yahay in la mid noqoto hadduu baabuur leeyahay inuu saan noqdo dawladda hogaaminta loo doortay waxa weeye inay ganacsiga xaqiisa ilaaliso ninka consumerka macaashkana ay wixii ilaaliso walaalayaal maanta waxa aynu haynaa dad badan oo caalamka oo doonaya dalkan inuu la maalgeliyo DB World waxaan ugu mahadnaqaynaa way ku soo dhigtay caalamkana way la soo jeedisay maanta Mareykan iyo Yurub iyo Asia nin walba wuxuu doonayaa inuu ka mid noqdo uu ka qayb galo horumarka Soomaaliya hadday macdan tahay hadday service tahay hadday technology tahay in laga qayb galo laakiin waxa weeye in Soomaaliya diyaar ma u nahay taa su'aasha u horeysa isweydiinna waxa weeye qofka caadiga ah muwaadinka Soomaaliya waxa laga rabaa qofka ajaanibka maal gashanaya inuu helo qof wax yaqaan oo si wacan u dhaqmaya marka oo horeysa qofka adeerbeelku ugu soo gasho ama kadib ama soo dibeyso qofka ka hor yimaada sawirka dalka qaadanaysa hadaad airport ugu timaado mid shaqada la cararaya iyo mid qaybsan oo qaylinaya iyo mid wuxuu kula hadlay aan garanay de qofku uu sasayo ka cararaya meesha meel uu boonanay hadduu markuu airport ka soo dego ilaahu dalku tagay meel uu qashi tuulan iyo wada godgoda iyo dad qaaqaawan haddii aan la ka si xirfadoobay hadduu arko wuxuu kugu maagaliyaa ka cararaya ما مسؤولين وصار وقف الوقت كله كرعصة كله ما يرهلا كله أما قلنا مسؤولين الدكتور كا دولة الحاكم إن الإسلام كان ترى نروح سوى قرض الإسلام قبلنا عيب ما يا قرآن ما كان روح بقى قبلنا إن هيبرو مير هي لوجي لا ما ذيك روح بس حرمه ما بقولين تاني ما دوش شركة دوي ما دو وحكارنا ما لا يتجمع بيتجمع قول بلا شو دو إنه كبار قلنا يعني
وأنت إذا ما تمين هنا ولكن قريبا ولا فننا أما نبغى ولا تشتكي ممتع أو خصوص يومي حقولك إنسان بيوم هنا الله يكون طبعا واو لكن نقول قارسنا الواحد وحنوبنا عقلي وحا سوي الله هي صدخدات aqoonta iyo dhaqaalaha iyo hogaamintu waa inay wadaagaan oo ay dalka dhibaatooyinka ka jira xalliya anagu xukuumadan dalku waajibku ugu weyn baa saaran waxay siiyeen ninka wasiirka ninka jaranka iyo madaxweynaha mid walba waa loo kacaa amarkiisa la qaatay waa la ixtiraamaa qof walba uu ka joogsan lacag inta goysaa ma jirto taajirka lacagtiisa ma goysaa inta dadku ixtiraamka ninkay siiyeen wax la rabaa in waxay doonayaan furiyo ayaa anaga laga rabaa si aan taabo furiyo ugu dhiirradeen oo dadka amaankooda u siina ay lagu leeyihiin waxa lagu waajibaa inaan hawsha u howlo labada qole ee nala midka ixtiraamka la siiya waa ganacsatada iyo aqoonyahanka inta ka hooseysa dawladda marka inta la salaamay ee la ixtiraamay ee u badan ka dhaqato inta in la cayro waa loo xambaariyaa dhaliisha qaranka oo dhan ma la rameeyay lahaanay laakiin xaajiyada ganacsatada lama caranto aqoonyahankana lama caranto eedoodana loo sheegay saddexdaan tirado kala ismaya waa leeyahay anagu waxaan ixtiraam u haynaa oo doonaa inaan negotiation iyo wasaaxiibtinimada u wanaagsan yeelan ganacsada iyo aqoonyaha saan dalka u dhisno waana laga helayaa waa ku dadaalana waxa kaloo waajib oo saaran oo lagu xisaabtay waxa lagu dhiibo haddii awood tahay iyo haddii dhaqaale tahay inaan musuq galina dadkii rahaa si cadaalad u noqoto horta waa ku dadaalanaa masabaabay karo waayo musuqa iyo xashada iyo qabaal waana xushayna nin walba uu yimaada wuu iga waariya dadka cadaalad ku dhaqo musuqa ilaali haddana wuxuu oranayaa yarkaygii baa meel leebel in ka soo leeyahay wuxuu oranayaa dawladdu ma dheelto reer baa ka maqan halka lagu qala dadka ama injineerada wadooyinka reer lagu qori karo jiro wadan reer injineer wadooyinka wala xagee ka keenay hadaan reer lahayn dhakhtar surgery xagee ka keenay hadda waa ninka iga waanaya mikrofoonka iyo masaajidka iyo meelo meelo cadaalad ah la dadka hadla sinaado haddana wuu soo galaa waa mutay hablaas waa mid tahay banaha waa ka maasantii abu tahay waa fada tujaartu waa tartanta iyo shirkadu tartanku waa mid inaga inoo faa'iideeyay mid inaga dilo walaalo tujaar iyo shirkadu waa tartanku waa ka hor loogu marayo waa ka fikrada abuuraya laakiin ma aha inaan maqlo shirkadu waa weynaba leeyahay magaalada isku haysta door meel laga taagay leeyahay marnayo ayaa maamulku isku dhimaayay waa shirkadu waa weynaa marka waxa ku soo koobaya maanta waxa laga hadlo message-ka waxa weeye qaybta dhaqaalaha ee xorta iyo aqoonyahanka iyo xukuumaddu saddexda mas'uuliyad la saaran annaga taayada alla ma waxay qarin laba tajir buu jooga alla waxay qarin nin leeyahay wala doorto xeel qalab haysa ilaahay waxay qarin wuxuu qabtaara baraka male maalintu dhinta la amaana maalintu dhinto ayaa la amaana inta goor soo ku shubana saaran diyaar ma aha waayargeeda ma aha labada qaybood kala doonayeen in la soo galaan hawsha oo koob shaqeeyo fursada maanta Soomaaliya ay haysto laba sano soo socdo waa fursad hadda ay saytay si loo helo ayna gareey iyadoo la intaafsanay oo waliba wala ay bari dawladda raashay inuu aan jabay soo meel walba laga dagaalamay meel walba haddana ilaahay wuxuu qadaray maanta in caalamka Soomaaliya soo jeedo waxay loo diyaar shirkadihii bitroolka badaya waxa diyaar ku weyn macdanaha soo saaray waxay loo diyaar ku misaal sawir lahaa cid kasta bari iyo galbeed waxa lagu wixii lacag ah oo inoo soo jeeda haddayna ganacsadeena iyo aqoonyahankeena iyo dawladdu arrinta ka faa'iideeyay taariikhda saamiximayso ogaada intayna maanta xirkaysan anagu xagga diyaar baan ka nahay idin rawo sugeynaa aad iyo aad u mahadsantahay